fideoga wareegaya meel lagu duubay ma ogeen, meel lagu magaciisiyey ma ogeen, duubistiisu war kama hayn, aniga ma haysan, faafintiisu war kama hayn, suu ku galay social media maaqaan. wiilkaasaa duubay, odagayga horaa iga duubay. sababtuu iga duubay aan idiin sheegaya, aan u hubo aan idiin sheegayaa, markuu baxay 2020 markuu tegey aan maalintaan ku xanaaqaan waxa iri sharcigan kaala noqonaya. markaasuu wuxuu yiri messengerka intuu iigu soo diray message waxaad samayn karti samee. fideogaasna wuu ii soo diray, wuu yiri caddayn baan haystaa. xarayso isma oran, meel dhiga isma oran, ku dacwey isma oran, farahaan ka qaado. ilaahay baan ku daayay, ma duubin ani, meel lagu duubay ma ogeen, laakiin inuu jiro waa ogaa. 2020 markuu tegey aan iri intaan maalin xanaaqay waan ku dacweynayaa, sharcigan kaa celinaya. markaasuu yiri ii soo diray message uu yiri waxaa rabta samee. fideogaas bannaanka yaalon diraca qabana wuu ii soo diray, wuxuu yiri caddayn baan kaa haya, ilaahay igu ogyahay. qof kasto cay ii soo qoray, qof walba oo waxaan jirin iyo beentii lagu dhaartay igu sii aflagaadee igu dulmiyey, idinma cafin, weligayna idinma cafinaan. wiilkaan kala tagnayna weligay adduunka intaan saaranayo ma cafinaayo. maalintuu beenta ku dhaartay baan go-aan ku gaaray inaana cafin. akhir xisaabta allah noo dhaxaysa ani asaga, ma cafinaayo. qof alla iyo qofkii i dulmiyey ma cafinaayo. qof bini aadano oo bini aadan ah oo sankiisu neef ka baxdo oo say wuxu jiraan og ma jirto aan aniga asaga ahayn. qof bini aadanoo ku dhaaran kara say wuxu jiraan iyo say wuxu dhaceen oon aniga asaga ahayn ilaahay ma jiro. qof bini aadanoo igu cayn kara anaa qof xuno anaa xaqdarro galay ma jiro. aniga asaga iyo ilaahay baa og say wuxu dhaceen iyo wixina dhex maray iyo waxaan ku kala tagnay iyo say wuxu jiraan iyo wuxuu sameeyey iyo waxaan sameeyey. saas ka dhaadhiciya dabaysha duusho had dhinac u jeesata ha noqonina, dembina ha gorobsanina. idinma cafin, ma cafinaayo. qof walbo i dulmiyey oo dulmi iga galay, wuxuusan hubin sheegay, wuxuusan hubin igu caayay, idinma cafin. ninkii aan kala tagnayna akhiro xisaabtaasaa naga dhexaysa ani adiga. ilaa 1900 ma sheegan sheekay ku timid, ilaa 2016 aan biila wixii tabartay ah aan u diraay ilaa uu halkan ka yimid. intuu shaqo ka haayay shaqo ka helaayo waa biilaa, hooyadiisaan biilaa. halkaa kitaabka qur-aanka ay yaalla. been kuma dhaaranaayo, run baan ku dhaaranayo. xaqdarra aa lai daba socdaa, la ii dulmiyey waqti dheer. macal hooyadiisaan biilaa. marka noocaasaan u dhashay. qofka aan qofkayga ah waxba kama garado. wuxuu soo fariistay social media, wuxuu yiri fideoga wareegaya ayadaa iska duubtay. fideoga wareegaya meel lagu duubay ma ogeen, meel lagu magaciisiyey ma ogeen, duubistiisu war kama hayn, aniga ma haysan, faafintiisu war kama hayn, suu ku galay social media maaqaan. wiilkaasaa duubay, odagayga horaa iga duubay.
sababtuu iiga duubay aan idiin sheegaya aan u hubo aan idiin sheegayaa markuu baxay 2020 markuu tegey aan maalintaan ku xanaaqaan waxa iri sharcigan kaala noqonaya markaasuu wuxuu yiri messengerka intuu iigu soo diray message waxaad samayn karti samee videogaasna wuu ii soo diray wuu yiri caddayn baan haystaa xarayso isma oran meel dhiga isma oran ku dacwey isma oran farahaan ka qaado ilaahay baan ku daayay ma duubin ani meel lagu duubay ma ogeen laakiin inuu jiro waa ogaa 2020 markuu tegey wuu aan iri waa intaan maalin xanaaqay waan ku dacweynayaa sharcigan kaa celinayaa markaasuu yiri ii soo diray message uu yiri waxaa rabta samee videogaas bannaanka yaalon diraca qabana wuu ii soo diray wuxuu yiri caddayn baan kaa hayaa ilaahay igu ogyahay wuxuu yiri waa i dishay dhiig bay iga keentay waa i dishay dhiig bay iga keentay yiri maalin baa haraantiyey intaa isla joognay maalin baan haraantiyey dhiigna kama imaan dhakhtarna uma baahan qofkii la dilo dhiig ka yimaado dhakhtar baa u baahan yahay boliis baa u imaada maalin baa haraantiyey noloshayda dhiigna kama keeni ilaahay igu ogyahay wuxuu yiri sharciga iga cashatay sharci kama ceshan marka dadku kala tagaan oo sharci ahaan asagaa dalbaday oo sharciga maxaa la dhahaa maxkamadda xaashi u qoray oo yiri maxaa la dhahaa si sharci ahaanaan ku kala tegaynaa ma diidin waan ka yaabay sidiiba wixiisii ku dhamaystay markii dadku ay kala tagaan oo sharci ahaan ay ku kala tagaan waa in home officeka lala socodsiiyo message baan u diray home officeka aan iri wiilka ilama joogo waan kala tagnay maalintaas ay igu dambaysay home officekana ilama soo xariirin wax kalena ma arkin sharcina kama celin looyarra ma qabsan maalintaas ay igu dambaysay sharciga halka intuu joogo wuu ku shaqaysanaya security intuu london joogo security ku shaqaysanaya bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idin salaamaya soomaali weyn meel walba adduunka dacladeeda ay iga daawataan soo dhawaada walaashin fahimo waaye waxaan u soo galay maanta waqtigan dambe aan u socdaa aan u soo galay iguma taqaanaa inaan saacadahan oo kale soo galo laakiin waxaa igu qasbay inaan saacaddan soo galo oo aan rabo waxaan rabo aan dhaho iyo wixii aan sababtan u soo galay inaad dhegaysataanaan rabaa si fiican ii dhegaysataan inaad fariisataanaan rabaa waxaa la dhahaa social media maxkamad maaha caawa maxkamad waa caawa maxkamad waa maxkamadaydi waa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واسكو داي wax badan 3 sano bisi socotaa waan xishooday waan aamusay weli intaan meel soo fariistay saan raba caawo inaan uga hadlo ugama hadleen wax walbaan xeeriyey si walbaan u xishooday dumarnimaan u xishooday islaamnimaan u xishooday ehelnimaan u xishooday gabarnimaan u xishooday soomaalinimaan u xishooday aakhiraan u xishooday waa layga xishoon waay si kastaa la iga xishoon waay si walbaa la ii galay ninkii aan kala tagnay si walbuu ii galay qof dumara qof bini aadana aan loo gelin waxaa igu qasbay caawa inaan soo galo wiilka aan kala tagnay fideoga ugu dambeeyey uu soo duubay uu dhaarta maraayay
waan u jeeday waan iskaga aamuso waan isku dayay inaan iskaga aamuso beenta ku dhaartay been buu ku dhaartay been buu ku dhaartay waa la qaatay dad kalaa sii qaatay oo nabiibay oo been iga sheegay oo i caayay oo maxaa beenta maxaa dambiga la iga gelayaa maama soomaali maamadayda ma tihide ma nagu dhex jirta mase wuxu dhaceynaad ogeyd waxaan soo maray baad la socotaa maxaad ii dulminaysaa hooyaa tahay dumar baa tahay maxaad ii dulminaysaa maxaad ii caayaysaa maxaad dadku ugu qasbaysaa inay caayaan oo kanaalkayga intay iigu imaadaan ee cay iisoo qoraan maada qof islaama ahayn qof islaama hooyo ah maada ahayn maada qof dumara ahayn maadaa nagu dhex jiray ma markhaataa ka ahayd ma qabrigaa lagugu gelinayaa markhaataad ka ahayd oo goobjooga ahayd se wuxu dhaceen mise afkiisaa ka maqashay goobjoog umaada ahayn waxa aada goobjoog u ahaynna waa dembi wax walboo dhaca adduunka laba dhinac bay leeyihiin been buu ku dhaartay been buu ku dhaartay wax meel u yaalla asaga waa isagay meel u taallaa waan arkayay iyo dumar kaloo soo qaad laakiin waxay iigu daraa waxay ahayd aan la seexan waayey oo saacaddan inaan soo galo igu qasbay yaasmiintiina hadalkay tiri waan la seexan waayey igu qasbay inaan videogan soo duubo wiilkayga soo hadal qaaday waxay tiri wiilkeedaa ka duubay videoga wareegaya meelaha aad baa hadalkaa uga naxay hooyo noocaasna maahi wiilkaygana youtube shuqul kuma laha videowna igama duubo wiilkayga afka aa ku soo qaaday kuma cafin yaasmiinay kuma cafin waxaan kala helnaan leenahay akhri iyo xisaabta jirto waxaan ku kala helno aan leenahay dembigaas aad gashay wiilka saqiirka aad ka gashay anna aad iga gashay kuma cafin qof kasto cay iisoo qoray qof walba oo waxaan jirin iyo beentii lagu dhaartay igu sii aflagaadee igu dulmiyey idinma cafin weligayna idinma cafinaan wiilkaan kala tagnayna weligay adduunka intaan saaranayo ma cafinaayo maalintuu beenta ku dhaartay baan go-aan ku gaaray inaana cafin akhir xisaabta allah noo dhaxaysa ani asaga ma cafinaayo qof alla iyo qofkii i dulmiyey ma cafinaayo qof bini aadanoo oo bini aadan ah oo sankiisu neef ka baxdo oo say wuxu jiraan og ma jirto aan aniga asaga ahayn qof bini aadanoo ku dhaaran kara say wuxu jiraan iyo say wuxu dhaceen oon aniga asaga ahayn ilaahay ma jiro qof bini aadanoo igu cayn kara anaa qof xuna anaa xaqdarro galay ma jiro aniga asaga iyo ilaahay baa og say wuxu dhaceen iyo wixina dhex maray iyo waxaan ku kala tagnay iyo say wuxu jiraan iyo wuxuu sameeyey iyo waxaan sameeyey saas ka dhaadhiciya dabaysha duusho had dhinac u jeesata ha noqonina dembina ha gorobsanina idinma cafin ma cafinaayo qof walbo i dulmiyey oo dulmi iga galay wuxuusan hubin sheegay wuxuusan hubin igu caayay idinma cafin ninkii aan kala tagnayna akhiro xisaabtaasaa naga dhexaysa ani adiga ilaa 1900 ma sheegan sheekay ku timid ilaa 2016 aan biila wixii tabartay ah aan u diraay ilaa uu halkan ka yimid intuu shaqo ka haayay shaqo ka helaayo waa biila hooyadiisaan biila halkaa kitaabka qur-aanka i yaalla been kuma dhaaranaayo run baan ku dhaaranayo xaqdarra aa lai daba socdaa la ii dulmiyey waqti dheer
macal hooyadiisaan biilaya marka noocaasaan u dhashay qofka aan qofkayga ah waxba kama garado wuxuu soo fariistay social media wuxuu yiri videoga wareegaya ayadaa iska duubtay videoga wareegaya meel lagu duubay ma ogeen meel lagu magaciisiyey ma ogeen duubistiisu war kama hayn aniga ma haysan faafintiisu war kama hayn suu ku galay social media maaqaan wiilkaasaa duubay odagayga horaa iga duubay sababtuu iiga duubay a idiin sheegaya aan u hubo aan idiin sheegayaa markuu baxay 2020 markuu tegey aan maalintaan ku xanaaqaan waxa iri sharcigan kaala noqonaya markaasuu wuxuu yiri messengerka intuu iigu soo diray message waxaad samayn karti samee videogaasna wuu ii soo diray wuu yiri caddayn baan haystaa xarayso isma oran meel dhiga isma oran ku dacwey isma oran farahaan ka qaado ilaahay baan ku daayay ma duubin ani meel lagu duubay ma ogeen laakiin inuu jiro waa ogaa 2020 markuu tegey wuu aan eri intaan maalin xanaaqay waan ku dacweynayaa sharcigan kaa qayb celinayaa markaasuu yiri ii soo diray message uu yiri waxaa rabta samee videogaas bannaanka yaalon diraca qabana wuu ii soo diray wuxuu yiri caddayn baan kaa hayaa ilaahay igu ogyahay wuxuu yiri waa idishay dhiig bay iga keentay waa idishay dhiig bay iga keentay wuu yiri maalin baa haraantiyey intaan isla joognay maalin baan haraantiyey dhiigna kama imaan dhakhtarna uma baahan qofkii la dilo dhiig ka yimaado dhakhtar baa u baahan yahay boliis baa u imaada maalin baa haraantiyey noloshayda dhiigna kama keeni ilaahay igu ogyahay wuxuu yiri sharciga iga cashatay sharci kama ceshan marka dadku kala tagaan oo sharci ahaan asagaa dalbaday oo sharciga maxaa la dhahaa maxkamadda xaashi u qoray oo yiri maxaa la dhahaa si sharci ahaanaan ku kala tegaynaa ma diidin waan ka yaabay sidiiba wixiisii ku dhamaystay markii dadku ay kala tagaan oo sharci ahaan ay ku kala tagaan waa in home officeka lala socodsiiyo message baan u diray home officeka aan iri wiilka ilama joogo waan kala tagnay maalintaas ay igu dambaysay home officekana ilama soo xariirin wax kalena ma arkin sharcina kama celin looyarra ma qabsan maalintaas ay igu dambaysay sharciga halka intuu joogo wuu ku shaqaysanaya security intuu london joogo security ku shaqaysanaya qof aan sharci lahayn ma shaqaysan karo sharci kama ceshan oo ilaahay igu ogyahay marka waxa waaye waxa meeshan ka socda waxa waaye waa waali waaye waan aamusay waan xishooday waan isku dayay inaan tartiib ula hadlo hadal macaan ula hadlo waa socon waayeen been buu la soo fariistay waxa maxkamad waaye maanta meeshan markii mar rabo wiilkayga marka la soo hadal qaado oo aniga sumcaddayda meel looga dhacaayo oo aniga qof dad bini aadan aan nala joogin ay falanqaynayaan uu been ku dhaartay ilaahay waxaan ka baryay subxaanahu wa tacaala ilaahay xaqsooraha waxaan ka baryay inuu ilaahay xaqayga kaa soo saaro in ilaahay xaqayga kaa soo saaro codadkaygii baad bannaanka keentay videoday qarsoodiyaad iga duubtay bannaankaad keento dad baa usii gudbisay codadkaygii aan kalgacalka kuu iri baad bannaanka keentay been baad iga sheegtay
balaayaa faafisay maalin inaan shaah kuu shubay looma moodo maalin inaan shaah kuu shubay looma moodo haddaan eray soo iraahdo been baad ku soo jawaabaysaa oo dadka qalad iga fahansiinaysaa anigu waan isu kalsoonahay laakiin dulmiga ma fiicna in lays dulmiyo oo waxaa been ah layska faafiyo waa qalad ilaahayna raalli kama aha dhibaato badan baan kaa soo maray meeshaan keenisteeda ma sheekay ku timid anigu waxba haysan baan waxaa annaga cuni lahayd aan halkaan kugu keenay annagoo aan haysan lacag baan Kenya kula joognay oo hadba qof lacag ka daynsanaa ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa in xaqayga ilaahay kaa soo saaro aan ilaahay ka baryaa kumana cafin ilaa yowma alqiyaamaha kuma cafin qofka beenta ku dhaartay ehlunaar waa ehlunaar qof been ku dhaartay intuu meel soo fadhiistay waa ehlunaar kuma cafin adduunka xaqayga allaha kaaga soo saaro kuma cafin wax walba aad igu samaysay wax walba waxa kaliya kuma jecli ilaahay igu og yahay kuma jecli waxna kaama rabo araggaaga inaan arka xitaa ma rabo iska daa jacayle iyo muxubo dhibaatada ii geysataa jacaylka ka weyn kuma jeclo ilaahay igu og yahay dhibaataad iga faafinaysaa sumcaddaydaa dilaysaa waxaan jirin baad ku dhaaratay oo kitaab jaamaca ku martay aa laygu soo caayay wiilkayga lagu soo hadal qaaday xisaabta allah aniga adiga noo dhaxaysa qof allah iyo qofkii erey xun ii soo qoray oo i dulmiyey oo maama soomaali ka mid tahay oo yaasmiin ka mid tahay oo dad badan ka mid yihiin qof allah iyo qofkii gardarro igu dulmiyey oo waxaydan ogeyn oo idinaan ku dhex jirin oo idinaan war ka haynin oo aniga asaga iyo ilaahay og yihiin ka been sheegay oo aniga xumaanay igu xumaynayaan la soo fadhiistay cambaarayntayda idinma cafin weligay idinma cafinayo dadka maayihi victimka iska dhiga dadka maayihi attentionka jecel dadka maayihi hadba qof ku bowda oo video u dira hadba qof saaxiib yeesho maayihi qof ilaahay ku xirana ahay waa su kalsoonahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaaya haddaan aniga gardaranahay inuu ilaahay aniga i qabto ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa haddaan aniga gardaranahay oo been kaa sheegaayo in aniga ilaahay i qabto haddaa been iga sheegayso oo aan waxba kuu dhimin waxa dhibaataa kuu geysan iyo danahaagii aan ka shaqaynayay aad jisaar igu noqotay allaha kaa soo saaro ceebtayda faafisay allaha kaa soo saaro dhaartaa beenta ku dhaaratay allaha kaa soo saaro maxkamad waaye ee magaciisa markii adiga lagu raadinayo been lagu dhaartay danta igu qasabtay qof la yaqaanaa ahay danta igu qasabtay inaan soo fadhiisto ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii been sheegaayo oo been ku dhaaranayo ilaahay ha qabto aamiin dhah allah ha qabto aniga adiga qofkii been ku dhaartay kow ii kartan allaha u keeno allah ha qabto waxaan rabaa inaad inta aad hadalkayga aadan soo hadal qaadin dhibaato igu filan waad igu samaysay ceeb igu filan waad i gaarsiisay been igu filan waad sheegtay alle hadduu yahay oo qof islaana aad tahay qof islaan ma tihid been baad ku dhaaratay waxaan rabaa inaad intaana sharciga kula tiigsan waxaan rabaa inaadan hadalkayga soo qaadin masawiraan leeyahay soo saaran waxaan rabaa biidni illaahi kariim ilaahay iga kaa qabto ilaahay ha iga kaa qabto
waad iga daba hari la'dahay anikaa ma aha qofka hari la waad iga daba hari la'dahay ilaahay ha iga kaa qabto haddaa aniga qaldanahayna ilaahay hay qabto kumana cafin doono ilaa yowma alqiyaama xaqayga allaha kaa soo saaro dulmigaa igu dulmisay iyo dhibaatadaa ii geysatay iyo intaasoo sano stresska aad igu furtay ilaahay ha kaa soo saaro beenta aad ku dhaaratay allaha kaa soo saaro dembiga aad gashay allaha kaa soo saaro xaqayga xaqaan kugu leeyahay xaq baan kugu leeyahay allaha kaa soo saaro qof alla iyo qofkii dhibaato ii geystay i dulmiyey waxaysan hubin waysan ogeen ka hadlay falanqeeyey leecaayey xaqa allaha idinka soo saaro idinma cafin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa ilaahay subxaana wa tacaala beenta qofka ku dhaartay inuu ilaahay soo qabto si dhaqso badan uu soo qabto markii wax badan baa aamusnaa wax badan baa lay dulmiyey si sikareeda la ii dulmiyey caqli la ii dulmiyey aan daacad ka ahayo saliim aan ka ahaa marka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xaqu soo baxo kuma cafin doono yowma alqiyaamaha xisaabta allah anoo dhaxayso aniyo adiga soomaali weynay ilaahay lama siri karo qabiil isku raaca hadba habar daarood hay soo saarato oo dembi ha gasho hee aflagaadayso qabiil iyo magaciisa edab darro iyo saaxiib iyo runta qariya qofka runta qariya qofka og oo runta qariya dembi baa uga socda adoo og se wuxu jiraan haddaada sheegin oo aad qariso dembi baa kugu socda xaqa allaha soo saaro ilaahay subxaana wa tacaala xaqa ha soo saaro xaqaygana allaha soo saaro asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu